بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسنا أصحابتنا داوتشال كنا ورجة تي في واحد كسر واتشان برامج كبر جرجة هذا يوكلا يات كدا وتنا شاشة عالمي جرجة تي في خذوا حساب بدنا إن على بكسر قدنا ساكا خذوا بدأ حساب بدنا تكون داون دونتان وحاخيب كانوا خندونا وكيف فيلم كلا وش شيء إن لو جيل يو خيبة كم ده دول كالصومالي ده كا أو أجيليان أكتره ولا شيء دلك هندية حتى وحلا شيء جاي إن فيلم كانوا نخندونه filimka ugu horeeyay ee aktaro caanka Hindiya ay ku jiraan geeyga Soomaaliya muddo dhowr sano kadib barnaamijka ayuu qayb ka yahay oo aad ku daawan doontaan sidoo kale qodobada kale xiisaha leh barnaamijka aad saaka ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya muxuu yahay tartanka hubka caalamka saboolka ah ee dunida lagu sheegay laguna qoray mid kamid ah mareegta caalamka waxyaabaha badan ee markaasi ku gudbiya barnaamijka ayuu qayb ka yahay asoo kale waxaad ku daawan doontaan qodobo ay kamid yihiin saameynta horumarinta iyo hantida wadamada quwada waaweyn barnaamijka iyo qayb ka yahay qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idinka qarinayo ayaan barnaamijkadan kugu soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigoo Ashraf farsamadii kaamirada waxaa gacan iga siinaya cilmi taqi waana mar kale barnaamijka bandhiga rajo waadsahay mar kale is aragti cidoona qodobadii aad daawateen waxa ahaayeen qodobada ugu door karona barnaamijka saakaan idinku soo xulnay ee bandhiga rajo aad ku daawan doontaan markana sheekada ugu horeysa ayaan soo qabanaya waxayna noqon doontaa waakee filimka lagu sheegay in lagu jilayo qaybo kamid ah geeyiga Soomaalida taa oo muddo kadib actara caanka ah dalka Hindiya ay ku jilayaan kabagasha filim Hindiya oo isugu jira sheeko jacayl dagaal iyo tahriib oo lagu jilayo qayb kamid ah dalka Soomaalida ayaa la sheegay in markaas la jili doono 10 bisha December ee sanadkan gabagabadiisa soo saaraha filimka oo kamid ah jilayaasha lagu magacaabo Amit Jakkalal oo la hadlay warbaahinta Times of India wuxuu sheegay sheekada ay inay tahay mid jacayl oo u dhaxaysa laba dal oo qurux badan Hindiya iyo waliba dalka Djibouti filimka wuxuu sidoo kale sharaxaya dhibaatada uu qof wajihi karayo hadii uu aado dal shisheeye waa jacayl arrimo qoys iyo dagaal balse waxa ay soo jiitay waa in sheekadan ay tahay mid midaba leh ayuu yiri qoraaga filimkan wuxuu ka hadlayaa laba qof oo saaxiibo ah kadibna uu safray dalka Djibouti iyo waxyaabihii ay kala kulmeen filimkan wuxuu ka hadlayaa sidoo kale wadamada kala ah Djibouti iyo Hindiya goobaha markaasi ay isku mid ka yihiin marka loo eego geeska Afrika oo ay Djibouti dhacdo Amit Jakkalal oo hogaanka u ah filimka ayaa lagu tilmaamay inuu kamid yahay jilayaasha soo koraya hadda ugu wanaagsan dalkaas India iyadoo la eegayo xaaladda iyo qalabka loo adeegsaday iyo waliba cimilada goobta lagu jilay filimka iyo xaalado kale oo adag haddana waxaan aad ugu kalsoonahay Amit inuu ka soo baxayo kaalintiisa yiri Sinu oo kamid ah soo saarayaasha filimkan Sinu oo ah ninka qaabilsan qaybta soo saarista filimka waxa uu sheegay inagoo eegayna dadka sheekadu ku saabsan tahay waxaan dareennay in ay habboon tahay in filimka lagu jiro meesha ay qisada dhabta ah ay ka dhacaysa filimkan Djibouti waxa jirinkiisa la bilaabay xilli dunida uu dhibaato ba'an ku hayay xanuunka COVID-19 balse arinta caabisay waxa yahay in dalka lagu sameeyay ay sanaxnibaad adag ay ka jirin iyo xanuunka oo aan si adag u saameynin sida ay sheegeen soo saarayaasha filimkan si gaar ah waxa filimka lagu sameeyay deegaan lagu magacaabo Todjora oo ku yaala Djibouti waxa dhawaan la baahiyay qaybta xayisiiska filimkan ay jirayaan atoorayaal iyo waliba dad kale oo Hindi ah ayna qayb ka yihiin dad u dhashay dalkaasi Djibouti hadda waxaan ku sii soconaa in shaashadaha waaweyn laga baahiyo filimka wali ma jiro go'aan in hab digital ah aan u baahino waxaan sidoo kale go'aansanay in la sii baahino filimka bisha November ayuu yiri mid kamid ah soo saarayaasha oo la hadlay warbaahinta The Prime Time waad saaxiibadayaal qabiil dhexe barnaamijka ayaan ku sii shaqeynay markana muxuu yahay tartanka hubka iyo caalamka saboolka ah ee dunida tartanka ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay tartamada ay wadamada quwada waaweyn ay markaasi awoodoodu ay istusaan sheekooyinkana iyo qayb ka aha ay ka bowsho labadii dagaal ee waaweyn waxa sabab u ahaa iyada oo la isku haysay hogaaminta dunida dalka looga baahan yahay markii dagaalka labaad ee weyn uu dhamaaday lagana adkaaday Hitler iyo gaanshaanburtiisa ma joogsan dagaalka halganka hogaanka dunida dagaalka xulafada ah ee mar kale la isku qabsaday hogaaminta dunida iyo cidda maamulaysa dunida guud ahaan sanad kadibna dhamaadkii dagaalka labaad oo ahayd sanadkii 1964 ayuu si rasmi ah u bilaabmay dagaalkii qabooba ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo dagaalkii lagu magacaabi jiray midowga Sofiyeetka oo iyagu dhinaca isla markaana xulafadii dagaalku ku guuleysatay
waxaa dagaalka qabow loogu bixiyey iyadoo uu ahaa dagaal hoose oo aan muuqan haddana weli uu socdo halgan loogu jiro dadkii hogaamin lahaa dunida. dagaalkaasi ayaa galaftay dad badan oo hoos loo qaarijiyey iyo dowlado si cad taladii loogala wareegay. dagaalkani ayaa ahaa kii ugu dheeraha ee loogu markaasi galo tartanka hogaanka dunida cidda qabanaysa, waxaana dagaalkaasi hogaaminta dunida ku guuleystay Mareykanka kadib markii uu Sofiyeedkii burburiyay bishii December 25keedii 1991 kaasi uu kala jeebiyay 16 dowladood oo kala madax banaan, waxaana isaga ku shahadhay oo maanta loo yaqaan dowladda Ruushka oo kaliya. madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaasi Bushkii weyna ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu dhamaaday dagaalkii qabow isla markaana Mareykanku uu ku guuleystay hogaaminta dunida iyo dagaalkaasiba. muddo dheer kadib Ruushka ayaa u muuqday mid doonaya inuu tartanka hogaaminta dunida ku soo noqdo, balse ilaa imika waxaa loo haystaa in Mareykanku uu yahay wadanka dunida markaasi hogaanka u haya. qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan daawadayaal isla soo gaarnay. sheekada ugu dambeysa ayaana soo qabanaya markana waa maxay saameynta horumarka iyo waliba hantida wadamada quwada waaweyn oo qayb ka ah sheekooyinkan idinkugu sharxnay barnaamijkeenan ee ka bogashawa. dalka Japan tirada dadkiisu ayaa kor u dhaaftay 120 milyan iyadoo baaxadda dhulkiisuna ay ka yartahay tan dalka Masar. dalkani ma laha kheyraad dabiici ah sida batrool, dhuxul, dhagax iyo macdanta xadiidka. Japan iyadoo aanay kheyraadkaasi dabiiciga lahayn haddana shacbigiisu kuma jiraan gaajo iyo saboolnimo midkoodna, waana mid ka mid ah saddexda dal ee dunida dhinaca dhaqaalaha hogaamiya. heerka nolosha dadkiisuna waa mid aad u sareysa. dalka Japan waxa kale oo uu dhinaca dhaqaalaha tartan kula jira Mareykanka. Japan waxa kaliya ay ka faa'iideystaan waa kheyraadka muhiimka ah ee uu haysto oo ah dadkiisa iyo waqtiga. labadaas arrimood dhammaan dalalka dunida oo dhami ay haystaan. haddaba Masar oo ka kheyraad badan kana dhul ballaaran oo gaas dabiiciga ah iyo waliba qudaar badan ee dibadda u dhoofisa tiro ahaan ka yar dalka Japan ayaa haddana dadkiisa waxay haysta dhaqaale xumo sababtay saboolnimo iyo waliba faqri joogta. horumarkuna waxa lagu sheegay inuusan ahayn hantida aad haysato, laakiin waa sida aad ugu fikirayso kheyraadka aad ka heli karto faa'iideysiga. waad sahay daawadayaal guud ahaan qodobkaas ayaa ahaa qodobka ugu dambeeya sheekooyinkeena saaka bandhiga rajo aad ku daawanayseen barnaamijkii aan idin soo saaray anigoo Ashraf xagga farsamada kaamirada gacan uga sinay cilmi taqiintan ayaana kusoo gabagabaynay inta barnaamijkan ceenkan oo kulmi doono nabadgelyo.